Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. Waxaan maanta bilaabaynaa buug cusub oo la magac baxay kontonka talooyin oo caafimaad ah. Waxaana qoray Ibnulqayiim al-Jawziyah, waxaana turjumay walaalkeen Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cali. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ah ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaa codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogta ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhegaystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay buuga aad halkan ka dhegaysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalsidee. Marka fadlan la soco buugaagta aan halkan ku soo gudbino. qaybtan waxaa kaga hadlanaa hordhaca buuga taariikhda Ibnulqayiim al-Jawziyah iyo 14 talo ee buuga ugu horeeya. Ogeysiis horta, ma ogtaha qofka buugta akhriya ama dhegaysta waxaa kordhaya garaadkiisa, waxa uuna noqonayaa qof aad u kalsooni badan oo ka sarreeya dadka uu la nool yahay. Marka daawade waxaa kuu rajaynayaa in aad nogeysiis noqoto qof garaad badan. Taariikhaha adduunka la socda buugaagta halkan kala socda iyaga oo dhammaystiran. Ogowna haddii aad isku qancinaysi waxaan waa application, codkiisa lama dhegaysan karo, waa mid adig ku taal. Anigu waxa u dhididayaa dadka faa'iidada raba oo raba in ay wacyigood dhisaan. 40 daqiiqo oo ay 10 bog ku akhrin lahayd kuugu bedelo 10 daqiiqo oo dhegaysiga iyo 15 bog oo hal mar ah. Ujeedada buugga: waxa aan akhriyay kitaabka Dibu Nabawi ee uu Ibnulqayiim uu qoray, waxaana ku dhex arkay faa'iidooyin cajiib ah oo aan jeclaan lahaa in la helo qof kitaabkaas oo idinku turjuma af Soomaali. Markii uu Ibnulqayiim kitaabkiisa sii dhammaynayay ayaa uu ku soo gabagabeeyey cutub aad u muhiim ah oo cutubadii ka horreeyay oo idil ay soo hoos galayaan. Aniga shakhsi ahaan aad baan u jeclaan lahaa in aan turjumo kitaabkaas oo idil, laakiin duruufo jiro awgeed ayay iigu suurtoobi weyday. Laakiinse waxa aan is iri, haddii aad wada turjumi weyday kitaabka oo idil, ka waran haddii aad turjunto cutubka u dambeeya kitaabkaas oo faa'iidooyinka badan ay ku jiraan. Waxa aan go'aansaday in aan turjumo cutubkaas oo afkayga hooyo aan ku qoro si ay uga faa'iidaystaan bulshada Soomaaliyeed. Waxyaabaha uu ka kooban yahay buuggu: sida aan kor ku xusay, buuggu waa turjumid aan turjumay cutubka u dambeeyay kitaabka Dibu Nabawi. Cinwaanka cutubkaas ayaa ah dardaan guud oo waxtar leh iyo ka digidda waxyaabaha aan wanaagsanayn xagga caafimaadka. Waana sidaas uu sheegay shiikhu oo buuggu waxa uu ka koobnaan doonaa labadaas qaybood oo kala ah talooyin la rabo in aan qaadanno oo aan nolosheena ku dhisno, iyo ka digid lanooga digayo waxyaabo caafimaadkeena dhaawici kara. Waxa aan isku dayay in aan ka dhigo qodobo oo mid waliba aan u sameeyo qodob gooni ah. Sidoo kale waxa aan sameeyey in aan sharxo haddii uu jiro qodob u baahan sharaxaad dheeri ah ama in aan ka bixiyo tusaale si loo fahmo. Sidoo kale waxa aan ku daray oo aan ku kordhiyey qodobo kale oo aan ka soo xigtay buug kale oo aan is iri waxaa ku jira faa'iidooyin dheeri ah. Ilaahay ma haddii waxa ayna noqeen 5 eber qodob oo aad u muhiim ah. Waxa aan is leeyahay qofka noloshiisa ku dabaqa ku saleeya qodobadaas waxa uu ka badbaadi doonaa cudurro aad u badan haddii Ilaahay doono. Taariikhdii Ibnulqayiim. Kumuu ahaa Ibnulqayiim? Magaciisu waa Abuu Cabdilaahi Shamsudiin Maxamed ibnu Abi Bakar ibni Ayuub oo loo yaqaano Ibnulqayiim al-Jawziyah. Waxa uu dhashay sanadkii 992 hijriyada oo waafaqsan 1292 miilaadiga. Waxa uu ku barbaaray magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya. Waxa uu cilmiga barashadiisa bilaabay isaga oo dayar, waxa uuna cilmi faro badan ka bartay culimo aad u faro badan sida cilmiga tafsiirka, xadiiska, carabiyadda iyo fiqigaba. Waxaa ka mid ahaa culimadii uu wax ka bartay uguna
muuqashada badnaa aadna u saameeyey sheekhulislaam ibnu taymiyah oo uu la kulmay markii uu shiikhu ka soo noqday waddanka Masar una soo laabtay magaalada Dimashq sanadkii 712 ee hijriyada oo waafaqsan 1313 ee miilaadiga waa uuna laasimay ilaa uu ka geeriyooday ibnu taymiyah sanadkii 728 hijriyada oo waafaqsan 1328 miilaadiga bogga 8 waqtiga uu ibnu qayyim la joogay shiikhiisa ibnu taymiya oo uu wax ka baranayay waxa ay ahayd muddo ku dhowaad 7 sano ibnu qayyim waxa uu ka mid ahaa culimadii waaweyneed ee saamaynta badan ku yeeshay dunida waqtigiisa waxa uuna qoray kutub aad u faro badan oo ilaahay suuti ummadda ku anfacay tirada kutubtiisu waxa ay gaaraysaa 744 kitaab shiikhu waxa uu ka mid ahaa culimada aadka u sugay oo uu bartay culumta shareecada qaybaheeda kala duwan waxaa ka mid ahaa culumta uu shiikhu aadka u yaqiinay daweynta cudurrada qalbiga ku dhaca iyo kuwa jirka ku dhaca labadooduna 2 kitaab oo waaweyn ayaa uu ka qoray oo ummadu oo idil ay ka faa'iidaysatay sida loo daweeyo cudurrada qalbiga ku dhaca waxa uu ka qoray kitaab magaciisa la yiraahdo Addaa wa Dawaa oo macnihiisu yahay cudurka iyo dawadiisa sidoo kale magaca kitaabka uu ka qoray sida la iskaga daweeyo cudurrada jirka ku dhaca iyada oo la isticmaalayo qaababkii uu nabigaas uu isku daweyn jiray dadkana u daweyn jiray iyo waxyaabihii uu isticmaali jiray suubanuhus ama dawo in ay yihiin uu tilmaamay kitaabkaasna magaciisa waxaa la yiraahdaa Dibu Nabawi waxa uu geeriyooday ibnu qayyim sida ay sheegeen culimada kale ibnu Rajab ibnu Katiir iyo ibnu Hajar al-Casqalaani habeen khamiis sanadkii 751 ee hijriyada oo waafaqsan 1351 ee miilaadiga isaga oo dadiisu ay tahay 6 eber sano waxaana lagu 14 ugu horeeya qodobada talooyin caafimaad waxay ku bilaabanayaan sidan iska ilaali cuntada badan waayo waxa ay fasahaadisaa caloosha waxa ay daciifisaa jirka waxa ay leedahay waxsi iyo caajis badan sidoo kale waxaa laga dhaxlaa cudurro 2 markii aad wax cunaysid si fiican u ruug cuntada oo ilkaha ugu burburi 3 ha cunin wax aysan ilkahaagu ruugi karin ama calalin karin waayo calooshadu waxa kari waayeysaa dheefshiidkiisa 4 ha cunin qudaarta iyada oo bisil mooyee 5 waxba ha cunin adiga oo dharagsan 6 u cun si dhexdhexaad sidoo kale ha cunin ilaa calooshaadu ka buuxsanto 7 ha seexanin adiga oo aan musqusha xamaamka gelin 8 sidoo kale ha gelin musqusha xamaamka adiga oo aad u dharagsan 9 nadiifi calooshaada waqti waliba oo wasakhda ka saar 1 eber ha isku celin waxa ka soo baxaya sida kaadida ama saxarada ama neefta waayo arrinkaasi jirka ayuu dhibayaa 1 ha iska qaadan daawo in aad xanuunsan tahay mooyee misna dhakhtarna kuu soo qoray waayo waxa laga yaabaa in ay kugu dhacaan cudurro hor leh ama xanuunkii ku hayay kugu sii bato 2 badso qubayska waayo qubayska badan waxa uu xoojiyaa jirka 3 ha ka tegin socodka oo waa in aad maalinkii waqti ka mid lugaysaa 4 hurdo kugu filan ugu yaraan 6 saacadood ilaa 8 saacadood habeenkii halkaas waxaa ku eg qaybteennii koowaad ee buugga talooyinka caafimaadka fadlan muuqaalka like saar channelkana subscribe garayso mahadsanid